Bismillahir Rahmanir Rahim. Daawada halkan waxaad ku soo dhawaataan barnaamij aynan uga hadlayno muxuu yahay hubka xawaaraha sare leh ee lagu tijaabinayo dagaalka ka soconaya bariga dhexe. Haddaba su'aasha ayaa daawada hubkan ayaa tijaabinaya dawladeed lagu tijaabinaya. Sidoo kale waxaa la isweydiinayaa arrintan ay saxaafadda dhankee ay ugu soo jirtay. Daawada barnaamijkan oo faahfaahsan ayaan idin haynaa waxaan rajaynayaa inaad ilaa dhamaadkaad nala joogtaan. haddaba daawada haddii aan ku bilaawno arrintan ayaa waxay la yaab ku noqotay ayaa la leeyahay Ruushka iyo Mareykanka. arrintan sidoo kale waxaa saxaafadda u soo gudbiyay generaal sare oo Ruush ah oo howlgab noqday kana tirsan dadka xiriirka dowladda leh ayaa la leeyahay Kremlinka. General Bov waxaa la leeyahay waa generaal sareeyo guuta ah isla markaana bilada sare ku guuleystay haddana howlgab noqday. Generaalkan ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay in ciidamada Shiinaha ay si dhab ah uga howlgalayaan ayuu leeyahay gudaha dalkaasi Iran. wuxuuna cadeeyay in Shiinuhu aysan xaqaas u joogin ayuu yiri inay talo bixiyaan dagaalka ay Iran kula jirto ama ay ka talo bixiyaan dagaalka ay Iraniyiintu ay kula jiraan Mareykanka iyo Israa'iil balse wuxuu yiri waxay nimankan u joogayaan ama cutubyo ka tirsan waxay u joogaan ayuu leeyahay tijaabinta hub casri ah oo Shiinuhu ay soo saaraan ama ay sameeyaan. sidoo kale generaalkan ayaa waxa uu ka hadlay istiraatiijiyad oo ku sheegay inay tahay heerka labaad ama istiraatiijiyada heerka labaad. istiraatiijiyada labaad oo ninkan sheegay ayaa wuxuu leeyahay Iran wali ma aysan adeegsan hubkeedii ugu awoodda badnaa waxayna dib ugu dhiganaysaa ayuu leeyahay qeybaha ama wajiga labaad ee matqaana dagaalka markii uu Mareykanku saahayda ka dhamaaday ee Israa'iil ama ay daalaan. sidoo kale General Bov ayaa waxa uu sheegay ama uu saxaafadda la wadaagay wuxuu saxaafadda la wadaagay generaalkani matqaana ama wuxuu yiri waxaan aaminsanahay in Iran keedsanayso awoodeedii si ay ugu diyaar garowdo ayuu leeyahay waqti ay xaaladdu noqoto mid aad u daran. Shiinuhu wuxuu siinayaa sidoo kale wadankan matqaana ishaag Iran sahay iyo taageero si gaar ah loogu diyaar garoobayo marxaladaas. haddaba generaalkan oo la weydiiyay in ay jiraan ciidamadaasi dhab ahaantooda wuxuu leeyahay dhiirigelin dhab ah ay Shiinuhu haatan siinayaan Iran sida uu ninkan sheegayo wuxuu leeyahay waa in Iran hadda ay noqotay goob tijaabo oo dhab ah oo loogu talagalay warshadaha militariga Shiinaha. sidoo kale wuxuu yiri Shiinuhu wuxuu u baahan yahay inuu qiimeeyo teknoolojiyadda mideeda shaqeynaysa iyo tan aan shaqeynayn marka la joogo goobaha dagaalka ama saaxada dagaalka. sidoo kale wuxuu yiri dagaalka ka soconaya Ukraine wuxuu ahaa Ruushka mid goob tijaabo ah oo hubkiisa ku baraawisanayay. wuxuu leeyahay kan xad ka soconaya bariga dhexe wuxuu leeyahay Chinaha waxay u tahay goob tijaabo oo matqaana ku tijaabiyo hubkiisa. wuxuu sidoo kale sheegay in Mareykanku uu ku dhow yahay ayuu leeyahay inuu ka dhamaado rasaasta maadaama uusan Mareykanku wuxuu leeyahay oo ka helgelin meel u dhow dalkiisa oo ka soo duuleynin. wuxuu sharaxay sidoo kale Mareykanku inay diyaariyeen 3 ama 4 goobood oo keed ah maalmihii hore ee dagaalka balse haatan wuxuu leeyahay goobahaas dhamaantood waa la isticmaalay. ugu dambeyn ninkan wuxuu ku doodayaa uu sheegayaa in Trump ومتقنا أولية هاي كيد حد لهين أيان هيسنا بس وحولية مركي لو إيجو خبرتها ميليترية مركي لو إيجو فلانقينت ميليتري وركاسي ترامب وحولية وحبك مجران أرنتان وأرن صحافة لوسو دوسيي نيجان إسلام مركانو وحبك كحل وباهنا يورباهنتا قراهان تلفي أو ورئيس كنسيي تاغدا لوحي فافاهنا أو كسر شبران كانوا وإن لو دايق دونا وعلى رجينا إن نوصل بيرتان أو عند جلس عتان إن بيج كينان أما كنال كينان كفتة معي channel